Bismillah. Sheekooyinka iyo qisaska iyo taariikhdii hore ee tagtay, qofku waxa uu ka kororsadaa aqoon iyo waayo-aragnimo. Inay sheekooyinka iyo waxyaabihii hore ee dhacay uu qofku akhriyaa waa amar Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey. Ilaahay baa wuxuu Nabi Maxamed ku leeyahay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun. Sheekooyinka uga sheekee iyo qisaskii hore dhacay waxaa laga yaabaa inay kuwaana qaataan. Maanta halkan waxaynu ku wadaagi doonaa 5 sheeko oo badidoodu ayna ku dhicin dad muslimiina ama dad Soomaaliya, laakiin ay cajiib tahay runtii sheekooyinkaasina xurkooda. Ujeedkaynu soo qaadanayna mid kasta aynu sheegi doono. Qisada koowaad ama sheekada koowaad haddaan si guud u sheego, sheekooyinkan dhammaanteed waxaa kitaab ku sheegay labadiisa kitaab kaatibka weyn ee la yidhaahdo Axmed Fahad Al-Caamiri, ninka kaatibka weyn Fahad Caamir Al-Axmedi la yidhaahdo, kitaabkiisa la yidhahdo Nadariyatul Fustuq ee ku sheegay. Marka wuxuu yidhi waa xikaayaatun fi tadwiiri daat. wuxuu yidhi qisada koobaad waa imtixaan, waxaa laga qaadayay imtixaan rag musicians oo music tuma. Dabeetana nin ka mid ah ayaa wuxuu soo istaagay manisadii ama meeshii uu ka tumayay miisiga. Kadibna markuu miisigii bilaabay ee miisigii uu waday ayuu xadhiggii koowaad ba u go'ay. Sidii uu waday isagoo xadhiggii koowaad go'ay ayuu sidii miisiga u garaacay oo uu si iskugu dayay inuu haddana heerkii markii ay saddexduba hagaagsanaayeen inuu heerkiisii dhigo. Kii labaad baa haddana go'ay, haddana kii saddexaad baa go'ay, kii afaraad baa haddana go'ay. Inta uuna kii afaraad go'in, saddexdaa hore intay go'ayeen baa si fiican oo wanaagsan oo aan quusasho lahayn oo aan ka noqosho lahayn buu u waday hawsha. Lajnadii ninkaa waxay wala siistay darajo dhammaystiran. Sababta ku siisana waa maxay? Maaha inuu ka miisig fiicnaado dadkii hore ee tartamayay, laakiin waa maxay? Waa inuu ka istaagin oo aanu dib uga noqonin maxay isku dagiisii, inkastoo ay waddooyinkoo dhan u go'een. Aduna maxaad kala dhex baxaysaa haddii waddooyinku kuu go'aan? uga wadduun buu Ilaahay kuu furayaa. waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. Qofka Ilaahay ka cabsadana Ilaahay waddo u baneeyaa, wadduu Ilaahay tusaa subxaana wa tacaala kaga baxo. Qisada labaad, waxaa jiray nin musaarica oo beerooda ah oo deganaa waddanka Holland. Wuxuu soo guuray geeska Afrika. Dhul weyn buu ka iibsaday oo ugu talagalay inuu beer ka dhigo halkaa uu ka shaqaysto. Laakiin markii uu iibsaday ayaa wuxuu ogaaday beertiisani inay dadka yihiin masas iyo abeesooyin dadka laynaya. Waxba aan laga qodi karinba. Haddii qodob lays yidhahdo meesha lagu baabaayo. Ninka halkan intuu oohin qabsaday ma odhan alla maxaa igu watay, san maxaan u sameeyey. Fikrad buu keenayba, iska badaayayba beertiiba. Wuxuu soo qaatay qalabkii ragga masaska ugaadhsada, masaskii buu ugaadhsaday, suntii buu iibiyey. Xataa al'aan waxaa la yidhi beertiisii waa meelaha ugu waaweyn ee laga sameeyo sunta waxyaabaha laga badbaado. Inta lasoo qabto maska sunta laga shubo dawooyinka laga sameeyo meelaha ugu waaweyn baa la yidhi geeska Afrika. Qisadan maxaynu ka qaadanaynaa? Cadamul istislaam. Al-istislaamka iyo waxa la isdhiibka inaad iska ilaaliso. Never give up. Adduunka laysma dhiibo. Wax kastoo dhaca wax hal bay leedahay. Marka dhinaca wanaagsan ka eeg. Lacallahu khayr. Kaasi khayr bay lahayd. qisada saddexaad, ninka kitaabka la yidhahdo kayfa tu'athiru fi nnaas ee uu ninka khabiirka ah qoray oo kaga hadlaya calaaqaadka bini aadamka, ayaa qisadan soo qaatay. Ayaa wuxuu leeyahay, wuxuu ka hadlaya sida dadka loo hogaamiyo ee dadka loo yacni dadka aad iska kari weyda ama cadowgaaga sida hogaamin kartaa waa inaad iyaga laftooda aad ka dhex samaysato boqorro iyo dee aad tala ku yeelato. Wuxuu leeyahay islaam baa beerteedii carruur jaarkeeda ah iyo carruurtii magaaladii uga taag weyday. Khaatiyaan bay ka dhigeen. Maxaa idhahdaa beerteedii way shiidaan, waxbay ka googooyaan. Islaantii way canaanataa, way la dirirtaa carruurta, way khaatiyaan ilaahay bay ka dhigeen. Islaantii markii dambe waxay go'aansatay inay way fikirtay, waxay tiri niyo maxaad samaysaa? Waxay tiri waxaan samaynaynaa iyagoo meel wada taagan bay koodii ugu madax adkaaya ugu cawaansanaa bay tiri niyo adaa u guddoomiye ah beerta, adaa mas-uulka ah. Guddoomiyaha beerta iyo mushrifka guud iyo supervisorka kormeeraya beertu ee ilaalinaya waa adiga.
ciddii faraa la soo gashana leedaa yaqaan. Maalintaa dabadeed inan yar oo shiida damba lama arag. Marka dee qisada maqsaheeda iyo ujeedkeedu waxa weeyaan dadka waa in laga faa'iidaysto. dadka eeg cunfi iyo adayg waxma taro, laakiin waxaa tara maxay in laga faa'iidaysto oo dadka ahmiyad iyo qiimo loo yeelo, kadibna masaalixdeena iyo ujeedooyinkeena ay noo qabtaan. qisada saddexaad waxaa la yidhi iyaduna ay tilmaamaysaa dee shay kastoo aad rabtaa xoog kuma heli kartid. hadaad istiraahdo imika dameer hogaami xoog kuma heli kartid. islaam baa daaqadda waxay ka eegeysay baa layidhi ninkeedii iyo caruurteedii oo sacay lahaayeen gelin kari la xeradiisii iyo meeshiisii lagu lisi lahaa naftu kaga baxday. way daawatay, way eegtay way yar fikirtayoo in yar caws way soo qaaday, way hor dhaqaaqday un saci wuu hor dhaqaaqay, xaguu tegey beertiisna ayuu ka dabagalay. marka dadka baahiyaha aynu ka leenahay waxaynu kusoo jiidan karnaa maxay inay nagala qayb qaataan noloshayna qayb ka noqdaan. laakiin amar dhiib oo halagu qaato suuragal maaha. waay qisadeena afraad ay midi uun ka dambeyso waa qiso iyaduna ka waramaysa afkaarteena qofkuu ka dhaxlay waalidkii iyo dadkii uu la noolaa ee aan looga fiirsanin ma saxbaa mise waa khalad. inan baa waxay aragtay saaxiibadeed oo marka ay kalluunka karinayso madaxa ka jaraysa. kaasii weydiisay, walaal madaxa maxaad uga jaraysaa? madaxa macdintii baa ku dhahay, maxaad madaxa u cuni weyday? markaasaa waxay tiri niyo wallahi ma garanayo waxaan madaxa uga jarayo, hooyadii baan arkayo madaxa ka jaraysa. hooyadeed baa lala hadlay, waxaa yidhi madaxa maxaad uga jartaa kalluunka? wallahi iyadna ma garanayo bay tiri, hooyadii baa iyaduna ka jari jirtay oon arkay. waxa wanaagsanayd oo ilaahay mahadii ahayd hooyadeed baa noolayd, islaanta iyaduna ka jaraysay kalluunka madaxa. hooyadeed baa loo tagayo waxaa lagu yiri war maxaad uga jaraysay kalluunka? hooyadeed si kooban waxay tiri dee berigaygii dheri noola qaada kalluunka maanan haynin, markaa madaxaan iska jaraynay iyo xagga dambe iyo xagga hore, dabada iyo madaxaba waan iska jaraynay si kalluunku noogu qaado. laakiin dee maanta waa dheriyo waaweyn baa lahayaa kurida kalluunka. inantaas hadday hooyadeed keliya weydiin lahayd waa laga gudbi lahaa taqliidka iyo isku dayashada indhaha la. qisadeena ugu dambeysa ee ugu xalada badan ee cajiibka aniga ridwaan ahaan weliba si gaara ii saamaysay waxa weeye ninbaa waxaa layidhi mexico ayuu deganaa. waxa uu maalin kasta ama usbuucliya si usbuuclo ah ayaa wuxuu xadka mexico iyo udhexeeya maraykanka uu soo marin jiray mooto uu wato. mootadaasi wax kale ma saarna, ninkaasi shandadunbu wata, ciidii ay saaran tahay ciid baa ku jirta. askarta xadku markay ninkaa baadhaan ee la baarbaaro ciiddaas baa lagu arkaa. ciiddii baa la qaadaa, waa la baaraa, waxba kuma jiraan, waa la iska sii daaya. waa lagu wareera ninkii, warwaa ciid sidihii iska sii daaya. ninkaasi maad garanaysaa wuxuu qaban jiray, shaqada uu ka qaban jiray maraykanka uu kasoo qaban jiray. kaana yabiicu daraajaati naariya, wuxuu soo iibin jiray mootooyinka ayuu ku iibin jiray maraykanka dhexdeeda iyadoo aan cashuur laga qaadin. maraykanna aanu ka qaadin, mexican aanu ka qaadin. qisadaa waxaan ka faa'iidaystay anugu, dadku waxyaaba badan bay kala soo baxaane asiriya taamata taama, war noloshaadu sir ha ku ahaato, wixii laga maarmi waayo mooye. xataa ninkaasi inuu mootooyinka ka iibin jiray cidna umuu sheegine markuu dhintay baa dikrayaadkiisi laga akhriyey, nolol maalmeedkiisi uu qoray baa laga akhriyey. qisaskaasi waxaan rajeynaya inay mulhim noqdeen oo ay ina saameeyeen. aad baad u mahadsantihiin. inta maan ku gaajaysan yahay guuli waa weli. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.